وقابريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقابريايا ووطني وقل كدايا ووطني كوقضا كرايا ووطني وقابريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقابريايا ووطني وقل كدايا ووطني كوقضا كرايا ووطني دوريا إن هلك كحصو مدحض حسبك كسو قيب كشيء سلام كبعدي هذا الكهوس نوغير ديغا سلام كبعدي مدشني waxa weeye madan lagu soo bandhigayo mashruucintii gobolka Togdheer uga qayb galaysay doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka degmada Burco degmada Wadweyne iyo degmada Buuhoodle halka waxa inoo fadhiya 43 musharax oo xisbiga wadani uga qayb gali doona tartanka doorashooyinka ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidkan aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waynu yar dul qaadan doonaa xafladda furitaankeeda anigu furitaanku baan leeyahay intaan ka warramaya waxa weeye xafladda inay sidaa tahay waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiintu siday inoo soo ixtiraamtay ee xafladda inoogala soo qayb galeen xafladda waxay uga yimaadeen magaalada Hargeysa ayay mas'uuliyiinta xisbiga uga yimaadeen inay nagala soo qayb galaan madashan waxaan kala doonayaa halkan inaan uga mahad celiyo musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada ee gobolka Togdheer sidii xilkasnimada lahayd ee ay noola shaqeeyeen muddadii aanu wadnay diiwaangelinta musharaxiinta مدحوينها مستقبل هو سلامية ولكن حرسي على حاجة سوى سلامية سليمان بان سلامية عبد الله يمشي سلامية مرحب بان سلامية لما دخل مدري كانوا سلامية سلامية قارهانا وحنا عدسي سلامية حلي بالنا بصدحي أفرتك إقصر حكم الكيدي أن كل شيء يا أباي كل شيء هو يدي كل شيء reer Burco sheegaya maanta 23 ka xildhibaan aad iyo aad bay ugu faraxsanayeen soo baxeen dadka caawa yimina ma aanu hayna wadani ahaa oo madaxweynihii ka qayb galay doorashadiisii oo u ololeeyay oo gudoomiyihii gobolka ku jiro kuwa weeye kuwa aanu kan sidii xadii sheegay intii xadii sheegay loogu dhantahay waxaan anigu sheegayaa oday meesha yimaanayo odaygoodii inaan hay saddexda musharax labada golada wakiilada iyo golaha midka golaha deegaanka kana waa noo qarsoon yahay u malaynayaa bacda salaan anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada magaca musharaxiinta xildhibaanada golaha wakiilada xisbiga wadaniga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka iyo dhammaan madaxdii la socotayba safarkii dheeraa ay nooga yimaadeen xubnihii qabanqaabada iyo qorshe ay diyaariyeen iyo dhammaan intiina ka soo qayb gashayba anigu magacaygu waa Cabdifataax Maxamed Cabdille waxaan ahay xildhibaan u tartamaya golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland kana tartamaya xisbiga wadani sidoo kale waxaan ahay xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intii sidaad igu garateen inaan dadka halka iga dambeeya sawirradooda halka ay soo taagay ha ku naaloonina inay noqdaan dad raas ka soo jeeda ama qabiil ka soo jeeda waxa weeye dad
u dhaaran doona qaranka waa ummad qaran qofkii ku fakaraya inay qabiil yihiin iska ilow caawa waa dhaar baa ka dambaysa ta labaad iftinku had iyo jeer wuxuu ka bilaabmaa togdheer taariikhda marka dib loo raaco togdheer unbaa ahayd especially magaalada burco waxa soo saara horumarka ficilka xorriyadoonka si kastaba u eego halkan ay ka bilaabantaa caawa halkan waxaad doorateen rag baad doorateen iyo haweenba dadka aad doorateen waxa weeye kuwii aad iska soo xusheen ee aad u malayseen aad ku dhaarateen inay noqonayaan dad idin hagaajiya dalkana hagaajiya ummaddana wax u qabta waxaan ku soo gebagabaynayaa foodkiinna ha seexannina ee soo saara dadka xusbiyada waxay u baahan yihiin waa dad firfircoon oo hawlihiisa si tabarruca u guta taasaa idinka muuqata taa marka la helaa baynu codkana ka shaqaynaynaa anigu waxaan idinku dhiiri gelinayaa oo keliya oo aan mar walba ku celiyaa markaan la kulmo taageerayaasha waddani waxaa laynooga baahan yahay inaynu codka ka shaqayno min ururintiisa ilaa codaynta ilaa ilaalintiisa marka la tirinayo iyo haweenka soo xulay musharaxiintan ee geliyey juhdiga faraha badan ee soo kala reebay ee halkii u dambaysay keenay ee xisbigii ku soo wareejiyey dadaalka intaa leeg waxa iska leh taageerayaasha hadday yihiin cuqaal hadday yihiin garaado hadday yihiin salaadiin hadday yihiin haween hadday yihiin hooyooyin mahad aad iyo aad u weyn ayay leeyihiin waayo halkan fagaaraha waxaa keenay dadka halkaa fadhiya ee ku soo juhdiga badan soo geliyey haddaannu xisbiga nahay annaguna si fiican ayaannu u guddoomanay si fiicanna waannu ula shaqayn doonnaa waxaan kaloo leeyahay oo aan idinku bogaadinayaa maalinta codka sidii xildhibaanadu ay kaadhka uga shaqaynayeen ee dadka u rarayeen maalinta codkana shacabka waddani ee halkan fadhiya iyo kuwa maqanba ha taageereen oo codka iyo kaadhka ha isla doonteen oo ha buuxiyeen goobaha codbixiyayaasha ummaddaasi way isu soo baxday ilaa tuulay isu soo baxday 10 jeer baa dadkaa la soo raray miyi baa laga soo raray cadceedday istaageen waxay dooranayaan waa dadkii matali lahaa dadka la soo doorto waxaa la gudboon inay xasuusnaadaan ummadda culayska intaa leegu soo martay ee filaysay ee ka rajaynaysay inay noloshooda wax ka beddelaan oo ay dib ugu soo noqdaan marka aynu eegno taariikhda waddankeenna odayaal badan oo aan soo gaadhay waxay ii sheegeen dhibaatadii ku dhacday waddankii soomaaliya la odhan jiray waxa kow ka ah 50kii ilaa 60kii dadku waxay u ciyaarayeen dowlad soomaaliyeed dumarkii baa soo baxoo dadkii baa soo baxay markay dowladdii dhalatay diintiina waa la tuuray dadkii dib looguma soo noqon bacda salaan reer burco horta waxaad soo sharaxdeen inama qurqurux badan inkasta hablaha ku soo yarayseen laakiin quruxdu waxba tari mayso codkii baa la rabaa codkii gobol baynu isugu faanaynaa anigu iminka sanaag baanu ka imi waxaan rajaynayaa inaannu la soo baxno xildhibaanno badan burcoy way noo tartan ilaahay waxaan u baryayaa in inamadaa ay noqdaan kuwii imtixaanka aan ku dhicin waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan ahay buraha xasan xaaji maxamuud waxaan ka tirsanahay oo tartamayaa golaha wakiilada somalilan insha allah waxaan rajaynayaa isbeddel wanaagsan kolley dumarka waxaa ka hor yimaada caqabado fara badan oo ragga isa siiya wax kasta oo dowladdu laga soo baxo laakiin waxaan rajaynayaa reer burco
يبدو يا شباب الكرام iyo shacabweynaha iyo murashaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka dhammaan kasoo shaqeeyaasha ayaa tartiib salaamaya burco annagu in badan baan ku soo noqnoqday oo isnaqaanaa burco isuukeen dambaysay anigoo u cida ayaa burco isuukeen dambaysay caawasha wadan baan ahay dagaal badan baan geli jiray oo burco galay oo la garanayo intaan ahaa u cid dagaalkankii wuu inooga soconayaa weli xisbi mucaarada baynu joognaa xisbiga waddani baan insha allahu tacaala idinka dhexaylin doonaa waxaanaan idinka dhexaylin doonaa ilaa iyo inta uu xisbiga waddani noqonayo xisbi xaakimka oo aynu insha allahu tacaala xaqeeda helayno waxaan rajaynayaa inaynu farsamo tab iyo xeelad waxaynu haynaba inaynu isticmaali doonno idinku gobolkan waxaan u rajaynayaa dadka maanta u tartamaya golayaasha kala duwan saddexda degmo doorasho ee gobolkani leeyahay iyo baarlamaankaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guuleeyo waxa kale oo aan kelmad kooban ka odhanayaa dariiqa waxaynu doonaynaa waa inaynu hagaajinno waxay naga horreeyey oo ay xildhibaano maanta golayaasha bannaynaya lagu dhaliilayay ayaynu rajaynaynaa inaynu tirtirno ka xigta waxaan salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka iyo cadaaladda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo waxaan ku salaamayaa salaan la ysku salaamo ta ugu qiimaha badan waxay ku soo xushay dad badan oo sharaf leh oo golaha deegaanka iyo qaadada gobolkada niman badan oo garanaya dadka fadhiya kalsooni baanu ku qabnaa kartidooda aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda idinka waxaa idinka rabaa sida hoogan aad ugu soo buuxiseen maalinta oo kale inay gacantooda u hiilisaan oo burburyo uga hiilisaan soo baxa fursada ma iyagana waxaa laga rabaa sidaad ugu listeen inay idinku hadlayaan oo idin shaqeeyaan oo wadama waxaan doonayaa inaan tilmaamo maadaama nidhi waa laydin guddoomay ma aha inay tahay inay dhammaatay guddoonkaa guddoomiyaduu guddoomay ee waxaa idinka horreeya jaranjarooyin nidaamiya baa idinka horreeya ama waxa weeye jaranjarooyin kala dambeeya oo aad ku xaqiijin doontaan ama lagu hubin doono qofka gudba ee la doorto ee taga golaha wakiilada iyo qofka kale waxaa ugu horreeya guddiga uu u xil saaray xisbigu u xil saaray guddoomiyuu magacaabay ee xeerka ku aastaysan ee ah 13 xubnood ee guddiga waddani ee qaabilsan inay kala xulaan sharcigaa sheego xeerkaa caddeeyey taasaana xisbi ku shaqaynayaa qof walowba waxaad bandhig u tahay oo lagu horkeeni doonaa adiga iyo siifiyadaadiiba xisbiga guddigiisaasaa lagu horkeeni doonaa waxaa la eegi doonaa inaad aqoontaad sheegatay iyo akhlaaqdaada iyo qiyamkaaga inay tahay midaad ku mateli karto xisbiga qarankana ugu adeegi karto waxay tahay tuu la eegi doono oo la baadhayo oo la soo bandhigayo qof waliba wuxuu marayaa interviewga ah marka qof walba uu diyaargarow marka labaad qof walba wax lagaaga baahan yahay waraaqahaagii wixii xeerku caddeeyey xisbiguna uu ku siiyey waxa lagaa doonaya requirementka lagaaga baahan yahay qof walba foomka markii lagu dhiibay buug baa lagu dhiibay buuggaasaad akhriyaysaa shuruudi baa ku qoran xeerka foomka laftiisa aad saxeexayso waxa weeye aad buuxinayso waxa ku qoran waxyaalo lagaa weydiinayo marka waxaan leeyahay qof walba isu diyaariyo oo diyaar garow waxaanu caawa halkan la soo garabkayga taagan 43 musharax oo isugu jira musharaxiinta golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer musharaxiinta golaha deegaanka degmada doorashada Burco musharaxiinta
golaha deegaanka degmo doorashada Buuhoodle iyo musharaxiinta degmo doorashada Oodweyne ee deegaanka dhammaan 43 mudane waanu idinka guddoonnay marka hawshii sharaxaadoodu way dhammaatay waxay mari doonaan 2 shaandho oo dambe shaandhada xisbiga iyo shaandhada komishanka insha Allahna way baasi doonaan oo way ku guuleysan doonaan haddii Ilaahay aniga laftigaygu caawa anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan iyo inaan Burco joogo oo guddoomiye 43 mudane waxaan caawa halka ka caddaynayaa inaan na caddeeyo musharaxnimadayda madaxweyne ee 2022 musharaxiinta maxaa laga doonayaa musharaxiinta shacbigu waxay ka filayaan inay isbeddel keenaan maxaa la bedelayaa waa la bedelayaa adeegga bulshada oo liita waa la bedelayaa horumarka degmooyinka iyo gobollada oo liita waa la bedelayaa cadaalad darro dadku tirsanayo waxaa la doonayaa in dalka loo sameeyo shuruuc u adeegta shacbiga isbeddelkaa waxaa laga rajaynayaa oo shacbigu ka doonaya waa xildhibaanada halkan taagan iyo kuwa kale ee ka sharaxan dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa Ilaahay uga baryayaa in xilkaa ay isu soo taageen musharaxiintu Ilaahay ku guuleeyo waxaa laga rajaynayana ay noqdaan adeegayaal u shaqeeya shacbiga waan erey kooban ka odhanayaa arrinta ciidanka qaranka waa ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu ku seexanno nabadda aynu haysanno waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda inay si wanaagsan dhagaha ugu furto cabashooyinka kala duwan ee ciidanka qaranka dhagaysato tixgeliso degdegna wax uga qabato dhammaan cabashooyinkaas waxaan halkan ka xasuusinayaa musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee shaqaalaha dawladda ah ama saraakiil ciidanka qaranka ee kala duwan ka mid ah sida sharcigu tilmaamayo 2 cisho gudahood waa inay shacbiga ugu caddeeyaan inay xilkii ka tanaasuleen oo ay ka tageen arrintaana waxaanu faraynaa komishanku inay hubiyaan iyo hay'adda shaqaalaha dawladda waxaan shacbiga togdheer ku bogaadinayaa qaabka ay u soo xuleen musharaxiinta iyo inaanay bari iyo galbeed u kala qaybin burca ha midowdo burca waa mid qura insha allahu xildhibaanadanina waxay noqonayaan xildhibaanadii burco wixii ka harsan qaybsanaanta midaynayay soo sidaas ma aha waxaan rajaynayaa oo idinka filaynaa in taageero mugla ah siisaan xildhibaanadaas